ورغدر دبدات باكو سلام يا سودا وهو ساديات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دماتوا هذه سلام هيا ملو البيتودا ديودا كذا سوتين وواسك دقبلوها كبلو فارح ولا الكيس معو كي كيرا بشير بالله مطارح حسقور صاحب كيس قرشوا درس كيس كونوا راونا قرسيكو سا حاجاب كجا لكتي مع الشورية بنوين شنتا بقى بغوري سودا وهذا رينا بدينا لول ميلو بيتودا ديودا كذا سوتين وواسك دقبلوها عجلات هديك سو قارت الشير قري شير كو قبا قارسي بيج كلا تهاديات حقبان عاوة حقبان وضع عاوة وليبا حساسي و very very secret رير مقدسو نقبلو واد قريسان بدو تغيران تقبلو مظاهرات كنا واقين لما كان معارض يرهدين ما ننت الجمعة يا الله يسوع صباحيا أيان حك وضع عدلة ميل فوق بيجاري دونتا إن شاء الله هدو إلهي يرادو وأنا حقيقة به غير مقدسو أرت عاصمة دي دلك الصومالي ومقدسو صومالي ونبا كنول قبل ياشا يكوا مات مظاهرات كنا واقعي عرور تودا قارنا مريكن بيدقيهين قارنا تركي بيدقيهين قارنا نيروبي بيدقيهين أرجو أرحنا كل نفتا وربحين تصيدا تايب أنا أرحنا وكل نفتانا ودقبلوه فين نبض ينالور تصود وهذا شير قرية عدلته سوشيال ميديا قاقلياشي قيلين جري سيدو ذي بيقو قيليان لكن إذا عذيه ولي قد بدقالها قادن جري اسكما جيران إذا عذيه لكن كوي لغو يقاني إنay bahasha gurbistaan dhaqaalay qaateen waxay cay iyo aflagaado iyo barabagaando la daba taagan yihiin amiirka ummadda Soomaaliyeed laakiin xaqiiqdu waxay tahay waxa weeye lama joogo waagi halsha idaacade ama halka TV-ga ah uu dadka wax u sheegi jiray lama joogo social media wax la yiraahdaa soo baxay Facebook wax la yiraahdo Snapchat wax la yiraahdo TikTok wax la yiraahdaa soo baxay oo waxa hadda dhaco ee Muqdisho ka dhaco isla markiiba waxaad ka daawanaysaa Snapchat ama Facebook live ama waxaad ka daawanaysaa TikTok waqtigay cadaaladu intay duubaan la soo jarjarayay ee hadalka la isdaba marnay ee dhitinka ahaa waa laga soo gudbay Soomaaliya guuleysatay oo cirkaas ay maraysaa inay guuleysatay waxaad ku ogaanaysaa cadawgiina laga guuleystay ummadii Soomaaliyeedna waxa la nacsiinayaa inay noolaadaan noloshiba loo diidayaa oo waxa la leeyahay ha noolaanina inay Soomaaliya guuleysatay oo farmaajo iyo dadka nabadda jecel ee sharafta Soomaaliyeed dib u soo celiyay ilaa hal qof kaliya sharaf ma soo celi karo dawladda lagu sheegay 20,000 ilaa iyo 10,000 oo qof ba u shaqayso yaa waxa la yiri ha noolaanina dadkii Soomaaliyeed waa cadawgii baa oranayay iyo kuwa ku shaqaysanay walaashay Firdaws Jiimeed ba ku salaamiya waxa la yiri ha noolaanina oo noloshii baa lagu diray waxa la yiri nabadda ha qaadanina oo nabadii baa lagu diray oo maanta waxaad arkaysaa Soomaaliyow maanta waxaad arkaysaa niman siyaasiyiin Soomaaliyeed oo cadawga u shaqeynaya oo dad mikrafoon intay soo qaateen dad hor taagan oo oranayo nabad iyo nolol waa wax xun wallahi rina beenahay Soomaaliyow dhagahaygan ku maqlay indhahaygan ku arkay dad badan oo Soomaaliyeedna way arkayaan intii aqli u saaxiibka ahayd ee aqligooda u sareeyana way yaabayin dad bay intay hor yimaadaan nimanka mucaaradka sheeganayo ee dastuuriga ahayn ee nidaamka dawliga aan ku soconin ya dad intay hor yimaadaan bay waxay leeyihiin nolosha naca dad bay intay hor yimaadaan bay waxay leeyihiin nabadda diida waa nabad iyo nolol weeye dhageysta waa labada shay ee adduunyada ugu qaalisan weeye waa qofka inuu noolaado irsaaqad raadsado iyo qofka inuu peace iyo nabad uu helo waa waxa adduunyada ugu muhiimsan weeye qolooyinkii mucaaradka ahaa يا إنت إذا عاد قاتان بي وحيليهن
nabadda diida nolosha diida nabadda diida nolosha diida intii aqle u saaxiibka ahayd iyo intay aqoontu ku dambaysay iyo intay wadaninimada ku dambaysay iyo intay damiirka lahaa way yaaban yihiin war maxaan ku diidnaa nabad war maxaan ku diidnaa nolol nabad iyo nolol haddii la diido ma isbaaraa la aadaa qaraxii al-shabaab iyo dhacii baa la aadaa maya la aadi maayo la aadi maayo soo dhowaada reer nabad iyo nolol intaan sheegay waa xaqiiq weeye nimanka idaacadaha iyo xaafadaha fadhiyee shaqla'aanta ahaa ee kumbiyuutarada wax ku idhitargareynayay yaa lacag cadowgii imaaraadka iyo kenyaanka ay siiyeen reer nabad iyo nolol idinkuna waad dhegaysanaysaan beentooda iyo barabagaandadooda ay dalkiinna ku duminayaan waa daawanaysaa waad dhegaysanaysaan ma arkaysaan gugudhib maalna gugudhig waxa ay akhrinayseen beenta iyo barabagaandada ninka jooga Sweden buu jooga waan garanaynaa aad iyo aad Soomaaliya inay nabad noqoto asaga dan uguma jirto sababtoo ah hadday Soomaaliya nabad noqoto Sweden baa laga soo celin ku fogaan maayo wariyaashii idaacadda BBC ka shaqeynayay beejaj bay furteen wad arkaysaan markii idaacaddoodii la dhagaysan waaye ee warkoodu dadka ku bixi waaye yay beejaj furteen barabagaandada dawladda iyo daldubiska iyo saa wadaan laakiin ilaahay baa Facebook iyo social media ilaahay baa noo sameeyay oo naga afbadin maayaan oo ka daali mayno inaan wanaagga iyo fiicnaanta dalka Soomaaliya soo gudbin been bay baratay runta loo sheegi been bay baratay runta loo sheegi been bay baratay runta la taabshiin oo xaqiiqda dhabtay reer nabad iyo nolol Soomaaliya waa guulaysatay nalaga guulaysan maayo sababtoo ah waxaan mar walba ku aadaamayno ee mar walba aan sheegayno waa inay dadka noolaadaan waa inay dadku nabad helaan intaasu baa sheegnaa wallahi been ma intaan baan ku celcelinaa dhageysta marka soo dhawaada cajalada sheer garay xog sire yaa reer Muqdisho siinaya hooyada Muqdisho joogto idhayga si fiican u fiir aabaha Muqdisho joogo idhayga si fiican u fiir dhalinyarada Soomaaliyeed ee u bixi dalka ah ee Muqdisho joogto ee TikTok-ga iyo Snapchat-ka iska soo duubee ee magaranaysaa ee social media quruxda dalkooda iyo quruxda iyagu ilaahay siiyey u soo bandhiga duwaynaha indhahayga aad u dhagaysto aniga indhahayga daawada oo aniga aad ii dhagaysto xasan sheekh maxamuud ninka la yiraahdo sheekh shariif ninka la yiraahdo daahir guuleed ninka la yiraahdo muxuu ahaaye xasan cali khayre ninka la yiraahdo cabdiraxmaan guuleed raggan isku reerka ah ee mucaarad inay yihiin sheegteen ee inay mursharaxiin yihiin sheegteen ee ku baaqay mudaharaadka yaa wax yar idinka dabageyna dhagaysta waxaan la hadlayaa hooyada aan ku bilaabay een ku iri duqbilow indhihiisa fiiri hooyo Soomaaliyeed baa tahay aabbo Soomaaliyeed baa tahay wiilkaagaanahay dhalinyarada aan iri TikTok bay iska duuban walaalkiin baan ahay Soomaali baan ahay Soomaali baa tahay hooyoy dhagayso anigu Mareykan baan deganahay Mareykan meel la yiraahdo yaa ku noolahay anoo duqbilowe ninka mucaaradka sheegtay iyo raggan mucaaradka sheegtay caruurtooda Mareykan iyo Yurub ayay ila degan yihiin xaafadaha diblomaasiyiinta ay degan yihiin ay caruurtoodu degan yihiin jaamacad bay caruurta xasan sheekh maxamuud dhigtaan xaasaska ay qabaan baabuurka darawal baa ku wado hooyoy dhagayso xasan cali khayre Norway buu degan yahay hadalkayga hooyoy si fiican u dhagayso qorshaha iyo shirqoolka Muqdisho ka dhici doono walla iyo bile aniga ku dhiman maayo xasan sheekh maxamuud wiil u dhalayna ku dhiman maayo xasan cali khayrena xabad ku dhici mayso soo dhawaada reer nabadii nolol shacabka waa in la wacyi geliyaa shacabka waa in runta loo sheegaa shacabka waa in xaqiiqdu sida ay tahay loogu gudbiyaa waxba yaan loo qurxinin dil iyo dhac iyo boob iyo in xaawo laga dhigto yeena qolooyinkan u qurxinin annagu wacod baa nagu yaallo
annagaba idaacadaan haysanaa social media ka hadli karnaa hooyadan si toose iyo aabbahan si toose ula hadlaynaa hooyoy dhagayso hooyoy aabbow muqdisho joogow idhagayso ganacsadaha Soomaaliyeed ee caasimadayda muqdisho maanta ku ganacsanayow idhagayso kuwa social media ka dhawaaqayo een anigu ka mid ka ahay iskaba reebay Yurub bay joogaan kaaman bay ku jiraan ceer bay qaataan wallahi billahi adigu ma hadashid hooyoy social media ma timaadid aabbow social media kama hadashid wiilka yar ee muqdisho joogo een maalinna ka dhaqaaqin ee TikTok iska duubayo ee caasimadiisa nabadda ku haysto wallahi billahi siyaasadda saami kumalid dhagayso dalkaad leedahay nabadaad leedahay hooyoy nimanka mucaaradka ah wallahi billahi sida sheegay weeye xaasaska ay qabaan caruuraha ay dhaleen turki bay degan yihiin maraykan bay degan yihiin ingiriiskay degan yihiin cabdiraxmaan cabdishakuur xaaskiisii caruurtiisu london bay degan tahay dhagayso berri jimcaha markay caruurtaada soo saaraan ay bannaanka keenaan qorshaha laga damacsan yahay yaan kuu sheegaya dhagayso waa siyaasadna waa laqdabo siyaasad bay caruurtaada iyo adigu kaa damacsan yihiin siyaasadna waa laqdabay dhagayso waxaa hadlay daahir guuleed daraad bay ku dhawaaqeen inay bannaanbax qaban doonaan kana soo qaybgeli doonaan hadday ka soo qaybgalaan 20 wiil baa ilaalinayso 20 wiil oy lacag siiyeen oo qoryo daba jeex wato ayaa ilaalinayso laakiin qorshaha laga damacsan yahay ee mudaharaadka laga damacsan yahay yaan cod dheer kuugu sheegaye hooyoy dhagayso nin unbaa Soomaaliya madaxweyne ka noqon waa ku ilaahay u qoray weeye markaad caruurtaada iyo adigu bannaanka timaadaan xasan sheekh maxamuud iyo daahir guuleed iyo ninka la yiraahdo xasan cali khayre already waa bilaabeen waana kuu qarxinayaa xogta ka dambaysana hadda kuu qarxinay dhagayso way bilaabeen idaacadaha ka hadlayaan markay ku leeyihiin markuu daahir guuleed ku leeyahay dawladda ayna carqaladaynin dhagayso hooyoy aabbow dhagayso wiilka Soomaaliyeed ee walaalaha nahay ee dhiigayga iyo dheecaankayga dhagayso markuu daahir guuleed iyo xasan sheekh maxamuud makarafoonka uu soo qaatay ayadoona mudaharaadka u dhicin yaa la carqaladaynin markay ku leeyihiin qorshe beesha caalamka iyo TV-yada iyo sympathy lagu raadsaday already diyaariyeen dhagayso hooyoy markaad soo baxdaan mooryaan bay lacag siiyeen hadda koorna waan ka haddana waan kuu sheegi waa siyaasadna waa khayaano iyo laqdaba weeye dhagayso hooyoy inay mooryaan ayaga fikirkooda aaminsan lacag ay siiyaan tuutuhu muqdisho waa badhaysi tuutaha ciidanku ay wataan muqdisho waa badhaysi xasan sheekh maxamuud baabuurta u wata muqdisho waad ku aragtay ciidamo tuutaysan iyo cabdi bila cabdi ayaa sidaa magaalada ugu dhex wadaan mooryaan ay lacag siiyeen oo tuutaha loo soo xiray ayaa la rabaa markaad soo baxdid baabuurka xasan iyo ninka la yiraahdo xasan cali khayre iyo ninka la yiraahdo sheekh shariif baabuura bulad buruufe yaa agtooda la dhigayaa 20 wiil oo daba jeex wadatana way iska hormarinayaan waxaa la rabaa masaakiinta caruurtaada hooyooyinka markay soo baxaan oy qiiroodaan ilaan shucuurtiinna qof walba qof buu taageersan yahay waa siyaasad xaq baad u leedahay inaad shakhsiga aad doontid siyaasadda ku taageertid laakiin in xaawo lagaa dhigto lagu dubto lagugu kaambeen gareeyo taasaan hooyoy kuu diidanahay aabbow middaasaan kuu diidanahay wallahi iyo billa middaasaan kuu diidanahay hadalkayga si toos baan adiga muqdisho joogo kula hadlayaa dhagayso inay mooryaan xabad soo siiyaan oo qoryo u soo dhiibaan ay yiraahdaan gadaal ka imaada xabadeeya dad dila
nolol bili aadana yaa lagu kaambeyn gareenayaa nolol nool oo saaka nool oo inay daawanaysa laga yaabo oo saaka hooyo iyo aabba ku xisaabtamayaan inay hooyo tahayna laga yaabo yay xasan iyo daahir guuleed iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xasan cali khayre yay rabeen inay ku kaambeyn gareeyaan qorshaha lagaa damacsan yahay yaan kuu sheegay hadda dhegayso in xabad ay ku hubiyaan oo xabad laydinku furo oo qaarkiin ay dhintaan oy xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif idaacaddu yimaadaan oo yidhaahdaan dad baa la dilay dawladdaa dishay xabad baa lagu dhuftay sidan baa dhacday oo afka baarkiisa ah just in la qoro keliya eeddaasna aan caddayn loo haynin hooyoy dhegayso aabbow dhegayso hadalkayga si wacan u dhegayso walle iyo bille kuwa social media ka dhawaaqo hooyoy anaa ka mid ah aabbow muqdisho joogow anaa ka mid ah ganacsadaha muqdisho joogow kuwa social media ka dhawaaqi anaa ka mid ah wallaahi maraykan baan degganahay gaari taraagaan ku shaqaysanayaa amni baan haystaa nabadgelyaan haystaa carruurtaydu nolol raaxalay ku nool yihiin sababtay ugu nool yihiin waa nabadgelyo anaa nabadgelyada ku shaqaysto adigu maanta nabadgelyaad haysataa wiilkaaga bajaaj buu wataa wiilkaaga dukaan buu haystaa afka ha laga hadlo adduunyada afka ha laga hadlaa laakiin aabbow hooyoy yaa lagu kaambeyn garaynin yaana lagu kaambeyn garaynin yuusan xasan sheekh maxamuud mooryaantiisa hub intuu u soo dhiibo yuusan wiilkaaga dilin hooyoy yuusan intuu idaacadda yimaado odhanin dawladda xukunka hayso yaa ciidan nagu soo fasaxday hooyoy hadalkayga aad u dhegayso wiilkaagaan ahay aabbow hadalkayga si fiican u dhegayso kuwaa social media ka dhawaaqayo ee habeen iyo maalin baqbaba afka xumburta ka keenayo kaaman bay ku jiraan qaarna yurub bay taariib ku soo galeen qaarna waxaa weeye meelaha waddamada nabadday joogaan way tuugsanayaan waddan aysan lahayn luuqaddiisu aysan ku hadlin yay guryo low income ah iyo guryo cayrah iyo gaajay ku nool yihiin adigu dhib baad soo martay rafaad baad soo martay qaxar iyo dagaal baad soo martay dagaal sokeeyaad soo martay nabad baa hooyoy kuu timid muqdisho 10 sano hadda ka hor siday ahayd waad og tahay hooyoy maanta siday tahayna waad la socotaa kumaysan imaanin social media laga dhawaaqo waxay ku timid adoo gagsaday dulqaad sameeyey iyo shaqo badan ayay ku timid nabadda maanta muqdisho ka jirto way ka qurxooneed sidan waxaa burburiyey kuwa maanta ku dhawaaqayo ee kule bannaankaan imaanno ee kule maanta ha la ooyo ee maanta kule ha la dhawaaqo ee xabadda inay idiin qariyaan rabaan xabad bay rabaan inay idiin qariyaane dhegaysta kuwaasoo kale ayaa burburiyey dalkannaga siday maanta ugu baaqayaan ay ugu dhawaaqayaan ay rabaan dalka iyo nabadda ka jirto iyo magaraysaa barwaaqadda adigu aad haysatay inay burburiyaan iyo 1991 saasoo kale ay sameeyeen kuwii waxaa ku dhawaaqayay carruurtooda yurub iyo dibadahay u dhoofeen laakiin qofka ku gaajooday qofka ku dhibtooday qofka ku rafaaday qofka carruurtiisa iskuullaanta ku dhacday qofka naafada ku noqday qofka hoobiyaha ku soo dhacay hooyay waa adiga muqdisho maanta deggan een weligeed meel nooga bixin aabbo waa adiga muqdisho maanta deggan een weligii meel nooga bixin oo wallaahi been ma kuwii dhawaaqaa sameeyey kala carar way kala tageen yurub iyo waxay aadeen ameerika dhegaysa marka waa iga goobaabo runtaan ka hadlaa nin dalkiisa jecel baanahay nin aabbihii iyo hooyadii ka naxaanahay nin carruurtaa soomaaliyeed ee la dhalatay ka naxaysaanahay oo xaqiiq dhabe doorashaa dhici fiiri way dhici doorashaa ka dhici meesha la yidhahda soomaaliya qofku ilaahay ugu talagalay yaa madaxweyne ka noqon laakiin wiilkaaga maanta lagu siyaasadeynayo ee lagu kaambeyn gareynayo iyo gabadhaada maanta lagu kaambeyn gareynayo iyo adiga maanta lagu kaambeyn gareynayo xabaddaa kugu dhici
ودمن قبرك لجوجين ماشي سوماليا أدينا كما ورهيشد أدوك وقت كتك تآخر هذا وحقيقة حسن الشيخ محمود إيا الشيخ شريف إيا نيكا اللي يراد حس على غيره إيا نيكا اللي يراد عبد الرحمن عبد الشكور أدر قرشها أي ربان سردونك الصوماليين وأوجي بيش عالم كنا ويلا سعوتا ومدى الصوماليين انت أغلي وصاحب كنا ويوكتاي لكن هو يوينك صوماليين إيه مقدسة كنول إيه دليرادة صوماليين إيه مقدسة كنول إيه قبيالة إيه قرنكو أي كوكي عنياني أغين وإن عدر لوغو شاقا قوغابا لوغو دبيا داهر قولاد با إذا عدا كادلي أدو يدي با يابن لما قارن مالنتا الجمعة already way ka sii digayaan dhagaysta Soomaaliya maalinta jimcaha yay yiraahdeen hal la soo baxo caruurtooy soo baxa cunta la qaybinay soo baxa qorshe kale ummadda uma soo saarayaan inay ciidamadan ayaga weerdiyeerayo ee baabuurta ku daba wadato intuu hub loo dhiba xabad lagu fural raba xabada markii lagu furo in la yiraahdo dawladda ciidankeedii ayaa xabad inagu furay dawladda ciidankeedii ayaa dadilay inay idaacadaha ka yiraahdaan cid ka fikiraysa male maarta markii la tuuro qofkay ku dhacayso cid ka fikirayso male maarta markay tuuraan qofkay ku dhacayso waxay ku dhacaysaa hooyo Soomaaliyeed waxay ku dhacaysaa wiil Soomaaliyeed waxay ku dhacaysaa aabba Soomaaliyeed oo maskiina oo dibadana war ka haynin Yurub iyo Ameerikana war ka haynin oo dalkiisa joogo nabad ku jooga maanta qabyaalad bay ku kicinayaan daahir guuleed ninkay yiraahdaan yaa arinta ka dhawaajiyay hooyo ogow aabbo ogow daahir guuleed ba arinta ayada ka dhawaajiyay idaacadu yimid maanta waxa uu yiri dawladda aysan carqaladeenin dhagayso hadalka waa siyaasi waa lagu hoosgelinayay hooyoy hadalkayga aad u dhagayso daahir guuleed oo afayeenka nimanka musharaxiinta sheegtay ayaa maanta idaacada yimid dawladdu kamaysan hadal dawladdu jawaab kamaysan bixin ayaga dhawaaqayo laakiin waa digniin bees caalamka loo sii digayo waa qorsho ay ayagu diyaariyeen dhagayso hooyoy daahir guuleed oo afayeenka musharaxiinta cadaaladiisa daawo oo dhagayso oo hadalka si fiican u dhux wuxuu yiri dawladda yaa carqaladeenin dawladdu yay mudaharaad ka carqaladeenin amniga hal la sugo wax dhagaysto marka ciidamadan faraha badan ee tuutaha wato ee daahir guuleed iyo xasan sheekh maxamuud iyo markii ninka la yiraahdo sheekh shariif daba ordayo yaa la kala qaybinayaa hooyoy hadalkayga aad u dhagayso qaarna ayaga ilaalin doonaan oo xabada isaga dhigi doonaan qaarna gadaal bay idinka soo mari doonaan oo xabad bay idinku furrabaan qorshe kalena lagama laha qorshaha kaliya laga leeyahay waxa weeye in xabad intii la tuuro wiil Soomaaliyeed oo maskiina hooyo Soomaaliyeed oo maskiina aabba Soomaaliyeed oo maskiina oo bartaa jooga inay madax ku dhuftaan inay idaacadu yimaadaan xasan sheekh maxamuud idaacada u yimaado sheekh shariifna idaacada u yimaado ee uu yiraahdo dad baa la dilay ciidanka dawladda dilay ciidanka dawladda dilay dad baa la dilay ciidanka dawladda dilay qorshaha kaliya ayaa laga dabacsay waana siyaasad hooyo wiilkaaga ha u soo dirin oo ka fiirso aabba wiilkaaga ha u soo dirin ka fiirso aabba adiguna yeysan xabadda kugu dhicin siyaasadda Soomaaliya raggu dad bay u dilaan waad ogtiin حسن ميقا حلبان بودلا ونوغنا ميقا حلبان او قيمة لها او شرف لها او هذا الإصناف صدين رقا سياسيين تا او يحبت كل نفتين ودوكتين قيمة كمال اكتوضا رقا سياسيين تا نفسد بالعالك قيمة كمال اكتوضا جستئين لي يرادو دات مداهرات يا دات توتاوتو حبت كل نفتين توتاها رقا وطنا واستاف كودوي جستين إذا كان بين جريان أو مجرد ساي إذا عدا إذا شتان أو يرادان دب الذي قرشها هو أنت كليوي دقيش ويلك الصوماليين مقدسك جرع سرية هذا هو حاوي السياسة يقولنا
adeerow siyaasad igu nac adeerow siyaasad iga hor imow laakiin ogow kuwa nagan ka qayliyo social media ee dabka idinku shidayo ee buuqiya qaylida idinku wado in anigu ka midka walla iyo bille isku talo ma tihiin isku talo wallaahi baadan ahayn sababtoo ah kuwa qayliyo ee xumbada afka ka sii deerayo baawuraha ka soo wada hadalba anigu baawur ba dhax taagan baawuraha laga soo wada hadlaya waa la wada dhawaaqaya baq sa lagu haya magaraysaa afkaasa xumbur laga sii deeraya reerka nagiyow ciidanadiyay soo baxay qoryaha qaatay waxa weeye ninka qoriga qaadanay xabadda ku dhig walla iyo bille waadiga laakiin ka Yurub joogo iyo duqbilowgan meesha ka soo dhawaaqayo markaan live ka baxo telefoonkaasa wada dabinayna nin wal midna ceertiisu raasan oo ceertu qaadanaya iyo meelii magaraysaa shelterkii u deganaa dib ugu noqon midna gaarigiisu wadano traagiis iyo saga shaqaysan laakiin ninka magaraysaa qoriga loo dhiibay ee hubka loo dhiibay ee qaylida iyo buuqa la geliyay walla iyo bille waadiga xasan sheekh maxamuud madaxweynu dalkan ka ahaa xasan sheekh maxamuud madaxweynu dalkan ka ahaa hooyay hadalkayga aad u dhagayso waa joogtay muqdisho xasan sheekh maxamuud maalinna intuu ku yimid rubac sokore ama kiila sokore miyuu guriga kugu keenay hooyay waa maya kuwa maanta dhawaaqi xasan cali khayre ra'iisul wasaaruha muddo 3 sano bare oo hadda dawladda nabad iyo nolol u ka aha intuu gurigaaga kugu yimid oo xaafadaada kugu yimid rubac sokore ee kiila caloolay ama hilib geel ama hilib ari ama nuskiila ma garanaysaa yaayo malaaye miyuu ku keenay waa may miyuu hooyay ku keenay maanta adaan ku weydiinay muqdisho hooyada joogto iyo wiilka bajaajlaha iyo wiilka wareejinaya cadaga iyo wiilka baalaslaha ayaan weydiinaya baawura bullet proof iyo sida muqdisho ugu dhax socday kala caas alqeer adiguna carradu kugu sheeray wadooyinkii buu ka xirtay qoriyo iyo ciidan iyo tiknika saaw ilaalis oo wallahi oo billahi oo tallahi hooyada muqdisho joogta Allah hadliyaan kama hadliyo siyaasad ee xaawada rabay laga dhigto yaa si toos oo run oo xaqiiqe oo qarsooneen baan ula hadlayaa عسى على خير يا نكي لا يرادا عسى الشيخ محمود والله او بالله او تالله هوي دغيش انيغا برتا كدواقيو كتف يايغا مريكا جوجو يا مالتانو ماذا لعقتان مريكا كليمت انيغا wax igu darayaan wallahi inana beerayn laakiin hooyay adigu marna xaaba laga dhigan oo waa lagu dili oo xabad baa lagu dhufan marna ma garanaysaa baabuur baa sida lagu dhaafi oo saa lagu dhaafi oo wallahi hadaad tiraadi xataa hooyay tiraadi aabbo waa tiraadi waa kala waanigi ninkii ku mudaharaday waa wiilkii garanaysaa hooyadii wiilkeedu ka dhintay wallahi buu san ku istaageen حسن على خير رئيس الوزراء مقدسها جوكتي أنا والله أنا بيرين مرمر بان دبت يا حقيقة هي سيدي تومد وشك عليهم بري مركز صوص هرم بقضاء ذيك الصومريان إذا كذا تطبط حبط بيد كل فريق حسن على الغراء ما أنت الصوب حي ذي كله إيه كالايا وقبيل كيجيو بناك وصوب حي بغ كواي هذا ما توردي شلو وردي والله بالله بارود بلد بروفه يصيرك ودفع أنا ترى كده حكيلي أو هالك قصة بوق غير حاس على غير فدي ويكحي هو دقيس حقيقة أجو ما أنت مقدسة نبات بات كويسة تا أجو ما أنت مقدسة ويل كاجا بجاج كل حواتو كل شقيسري أجو هاي معانتو ما أنت قبضنا هذا جور ويجور سريسة توصل هذا كور حبت بيسا قبضنا هذا وجور سكر توصل هذا كور ويل كاجا حبت بوسن وجور سكر ما ترى سكول بوادي وجراجوي وجورسرة يا جماعة هذه ويلكا جورسرة سياسيين إيه حبض إذا ربينا إذا كنا ميان والله أو بالله هذا قال هذين الله سبحانه هذين سيد واحد سيدين هذا قال هذين والله هذا بنانا وصوب بحذين والله هذا ويلكا وقراتين حبض كنا عذو والله هذا وقراتين إن ما قرر شيء جماعة هذا يا ويلكا يتبنان وصوب بحين عند بركة لقيتوكتين قرشاه كليه اللي قدم السيء وانا عرورتها هي وياك صوبعان دبرك حبط لقى مريه قال لي الدولة دي الصحابات كل فترة انا واو روتك الله
straight up naar luqluqiya qeyl bisabr kuwa wada qeylaya xumbada af ka sii deeray eed maalin walba daawanaysaan ee sax way runtii jarracadeeda ku kicilay wallahi yurubay ceer ku wada qaataan siyaasiyiintan idin la yeeli mayno shacabkaan u doodayna sheekh shariif madaxweynuha weligaana gurigaa degantayna garan maayo adduunyada inaad ku dhex nooshayna garan maayo waxaa weeye inaad dirtidna ma og casxal kheyraa ugu dambeeyana idinku yiri ayoo maanta u dhawaaqayo diyaarayna u dhimad wallahi buusan baabuur xabad buusaa kugu dhex marayay iyo bulad buruf warkaa ma hayn inaad dirtid iyo inaad nooshahay iyo inaad adduunyada joogtid wallahi buusan warkayn waxba yuusan maanta xaawo kaa dhigan waxba yuusan maanta intuu bannaanka kuu soo saaro dhabarka kaa toogan dhegaysa marka wiilasha dhallinyarada ee soomaaliyeed ee muqdisho joogo adeer afka ka hadla adduunyada afkay ka hadashaa afka ka hadla oo commenti iyo qoraal iyo dacaayad wada siyaasi wallaahi oo bilaahi tallahi ood maanta u dhimanaysid ood xumba iyo dhawaaq ugu jirtid anigayga halkaa ka dhawaaqayo ee habeen iyo maalaaf guduudka ku hayo iyaga kaa jeceliya wallahi rana beerahay sababtoo amerikaan deganaa sababtoo ka yurub ka imaanayo kaa jecelya dhegayso runta ogow oo xaqiiqda la soco siday tagow adigaaga waddanka la joogo ee qorax joogta mis weydiisay reer muqdisho mar mis weydiisay war madaxweynayaashan iyo nimanka siyaasiyiinta dadka yurub ka yimaado iyo dibadaha ka yimaado iyo dadka lacagta ka haysto ee magaraysaa xanuujiyo war waa soo dhaweeyaano hoteelada qaaliga ah ee muqdisho ku yaalay sawirro kula galaano isla baadiyaan anigaygan maalin walba qoraxda taagan ee bajaajka wado ee maalin walba baalaslaha ee dukaanka furanayo ee shaqaysanaya war iyo salaamaya xataa iska ka weynaysiinayaan laakiin maalintu kursi rabo ee uu wax dhinacsan yahay yuu anigii uu garaysaa yuu leey waa kan adigu xaawo kaa dhiganaya oo xilka ku keenaya uu ku leey kaale dadkayga yow soo baxay maalinta xilka saartid ee uu xilka qabtana waxa weeye xasan sheekh maxamuud kuma yaqaan sheekh shariifna kuma yaqaan xaqiiqdu waxay tahay waxa weeye adiga waxa ku anfacaya markaad tahay muwaadin adigu markaad tahay ninka qorax joogta ninka dalkiisa joogo ee shaqaysanaya adiga waxa ku anfacaya waxa weeye siyaasad degan ciidan boolis oo shaqaynayo haddii lagu dhaco dacwad u gudbisan kartid haddii xabad lagula soo aado ama xaqdarra lagu yimaado dowladaad u dacwoon karto oo maxkamadeedii leh oo cadaaladdeedii leh taasa adig ku anfici nabaddu markay jirto oo dowladnimadu jirto oy cadaaladdu jirto adiga aqligaaga shiili oo ganacsado noqo sidaad hadda ganacsado u tahay eed maanta bajaajka u wadid eed maanta dukaanka elektroniga garaysaa uga furatay muqdisho ood maanta baawuradu ay muqdisho kaaga dhex shaqaynayaan eed maanta bakaaraha ugu leedahay walla iyo bille nabadda iyo dowladnimada iyo cadaaladdaasumba adig ku deeqdo nabadda iyo cadaaladda umba adiga ku deeqdo waa xaqiiq dhabe dhegaysa marka hadalkayga aad u dhegaysto nimanka siyaasiyiinta qorshe kale ma wataan hadalay ku doodaan oy ku dhawaaqaan keliyay raadinayaan inay shacabkaa soo saaraan xabad la mariyo yidhaahdaan dad baa la dilay dowladdaa dishay dad baa la dilay dowladdaa dishay inay yidhaahdaan keliyay raajicaynayaan oo xaqiiqda dhabtoon been ahayn hooyada muqdisho joogto anigu si toos baan kuula hadlay hooyay wiilka soomaaliyeeda walaalkay ee muqdisho joogo adaan si toos kuula hadlay anu siyaasi lama hadal qof xildoona lama hadal adaan kula hadlay xabaddu hadday kugu dhacdo oo nimankaa mucaaradka sambatiga iyo qaylida iyo kaambeykay raadinayaan dad baa la dilay leeyin xabaddu adigu hadday kugu dhacdo hooyadaabaad ka dhimatay aabbahaabaad ka dhimatay haddaad aabbatood carruur dhashana carruurtaadaad ka dhimatood agoon baad ka dhigtay shaqayso wiilka dukaanka lahow dan kuguma jirto siyaasad xabad la isla dhacay waxaa dan kugu jirtaa siyaasad afka laga hadlayo siyaasad la falaanqeynayo oon gacanka hadal ahayn oo laga sheekeynayo keliya oo dukaankaagana uu furan yahay oo uu camiran yahay oo dhaqaale ku soo galayo taasay danta kugu jirtaa fowda hadday dhacdo buuq hadduu dhaco oo iskorashiinta soo baxaan aday hantida iyo dhaqaalaha aad u rafaaday iyo magaraysaa tacabka aad waqtiga badan gelisay
ياي دقيقة كوبن موريانتا كاغا عروسانيسا والله بين ما دقيقة ير أو كوبن أو واو ليري يا تكان كاغي انتا صوت بلود يا انتا صوت سنو الصوت تعبيسي ياي دقيقة ير هذا اللي مريا نبضة إيا الدولة نمده والله إيا بالله ويلكم مقدسات جوغو والله إيا بالله قبضنا مقدسات جوغتو إيا هو هذا مقدسات جوغتو أي دانتو قدرتها وقما درت عاصة الشيخ محمود تنزاني أنا قريو كلية تركي أنا قريو كلية عاصة وقبو لو هذا ميل بوكلا قيس نكا شيخ شريف يجري هذان والله إيا بالله أنا باري دي الشيخين بابي درسيين ماشي اللي هذا بوسطن ماساتشوستس يا رير كان نجي درسيين وانك اللي هذا عاشق محمود جامعات بانك لما حاسبوا قبها والله أقو مقدسة يقو حسيق محمود ما نك اللي هذا الشيخ شريف لما حاسبوا ليه حاسنا ميلها هي وان ده ودقتها حاسنا وحيد دقتها ماشي اللي هذا بوسطن أو إنجليز كوكبر يا جامعات يا وحياه ودور أردي حاجة سيد دقتها الماء كلش أنا وبين ما خان نك اللي هذا الشيخ شريف مركو على حاس كيسي بايرتو كشر يا الماء كلش شيء المي بأمريكان نقضي شرعي بالله قاضي حاجة سي حاس كيسو دقتها يكونوش أقول لك المقدسة دقتها حبضوا هداي دعوا ذاك كله بوب كاتو دعو هذا تكاك اللي جاب بوب هذا الكيوات فانتبه منه هو وحبيان اللي يقول له جوين أبو وحبيان اللي يقول له جوين دورشة ويدعي دورشة ويدعي نمبال الدوران صوماليا شخص صوماليا يعود كله يقولدي ولا دي برلمان كي صوماليا هبل بي دورتين وحقوكو هيو مدرت adiga wax ku hayo waa dastuurka iyo nidaamka iyo kala dambeynta iyo cadaaladda iyo booliska iyo militariga ayaa hooyay adiga wax ku hayo sababta booliska amnigaagu ilaalin aqligaaga shiili oo business bad la imaan booliska iyo dastuurka yaa wax ku hayo oo cadaalad ku hayo hadii lagu gardaroodo maxkamadda daadiyood ka dacwoon taasay dantu adiga kugu jirta madaxweyne hebel noqday iyo wasiir hebel noqday dhageysto hooyay muqdisho degatahay dhageyso aabo muqdisho degatahay dhageyso xasan sheekh maxamuud oo maanta iska daa madaxweynaha waagu haaya hadda oo uu shacab yahay oo meelaha uu ka dhawaaqo oo waxoogoogi uu dawladda ka dhacay iyo waxyaabo garaysaa farabado luflufas maanta adoo ku reere oo beesha uu ka dhashay xasan sheekh maxamuud oo maanta baahan oo dhibaato ku haysato oo duruuf adag ay ku haysato maanta xasan sheekh maxamuud jaziiru dagayahay waa adiga ordaya weey miyaad ugu tagi kartaa miyaad weydiisan kartaa $10 lacag uguma tagi kartid heli maysid kuma ogolaanayo ku siin maayo fursadda laakiin aniga halka ka dhawaaqayo ee ka buuqayo haddaan maanta inta ka soo dhoof oo Mareykan ka dhoof oo aan taga Muqdisho oo ugu taga meesha la jaziiro wuxuu ii gadayaa koob shaah jaziirada koobka shaah waa $20 iyo hor dhawey dhageyso oo Muqdisho deganta runta waxay tahay baa lagu taabshiin dhageyso aniga saa ugu dhag edarkaysaan yaan haddaan intaan hadda ka duula meesha la yiraahdo Mareykanka oo ugu taga meesha la yiraahdo Muqdisho oo jaziirato oo xasan karto warkaale adigi ku qabiilka ee xabad kugu dhacaysay ee wardayay magaraysaa xaabada uu ka dhiganay kuma ogolo inuu kula kulmo kuma ogolo inuu ku salaamo kuma ogolo $10 u baahan tahay oo ilmahaagu gaajo u dilayso inuu ku siiyo laakiin aniga uu siin aniga dabrow uu siin wuxuu dhii warkaalay warwaaniki dabrow warwaaniki igu tufay warkaalo shacab kasu koob shaah iyo garaysaa macmacaan iyo baalka aniga jaziiraga gadaya anoo dibadda ka yimid dhageyso dibadda أمريكي يوسف رسيلية كوك شاه قاضو وربحي أنا جاي وقروا لي $40 عبتاري الشاهي مقرر ساين وأنا جاي قضاء بيكتو أنا جاي هوي كقبيل كها كرير كها كعدها حبدا كوجود عيش حابدا وربينو كادكتو والله وبالله وطلع بدأ الجزيرة هوتيل كالجزيرة اللي يرادو مالين والبكات واقعيان والله بدأ نسود دوانكر إسكدا قلت أجسده قلت أتسوقشد جودها أسوقش إسكدا
eryadiisaan u soo dhowaan kar uma soo dhowaan karta uma soo dhowaan karta haddii uu madaxweyne waagu ahaana iska badaa iska hilmaam hooyay dantu waxay kugu jirto waxa weeye dantu waxay kugu jirto waxa weeye inay gabadhaada iskuulka ka baxdo dantu waxay kugu jirto waxa weeye in wiilkaaga iskuulka ka baxo ee uu noqdo madaxweynaha dalka Soomaaliya taa weeye reality-ga dhabta inay gabadhaadu iskuulka ka baxdo ay noqoto dhakhtarada dalka Soomaaliya wiilkaaga iskuulka iyo jaamacadda uu ka baxo oo noqdo madaxweynaha dalka Soomaaliya oo wallahi been ma raggan kaliya waxaan kale dorkay arkaysaan aruurtooda waan idin sheego meel dibadaha si degay halka baashu markay marayso oo barta taagan tahay maleen maayo wiilka Soomaaliyeed ee ka ganacsaday maanta businesska quruxda badan ku haysta Muqdisho inuu dhageysan doono qaaqla siyaasadeed oo iska dhawaaqayo iska buuqayo wala wada dhagsay adna duruuf baa ku hayso walaal macaan hooyoy duruuf baa ku hayso nabadaasi way macaantaada ku nabad ku caana maalo ku shaqaysanay yay ka arqaladeerin yaysan ka dhibin maleen maayo wiilasha Soomaaliyeed ee maanta quruxdooda caalamka laga daawanayo maleen maayo gabdhaha Soomaaliyeed ee quruxdooda maanta caalamka laga daawanayo ee Muqdisho sharafteeda adduunyada sida ugu soo bandhigayo ee ganacsiyada kala duwan kula Muqdisho inay maanta niman caruurtooda Tanzania iyo Turki iyo Boston iyo London iyo Norway ay degan yihiin inay u gubi doonaan u baabiin doonaan anigu ma aaminsan ku qoslo oo siyaasaddu ha noqoto mid la faraaqeeyo ku qoslo oo diida mooryaanka rabo inuu hantidaada boobo Soomaaliya ha guulaysto qorshaha markay wataan ragga waa inta anigu maanta waxa si toos ah u hadlay hooyooyinka hooyadayo kale taa ee Muqdisho degan waxa si toos ah u hadlay aabayaasha aabahayo kale taa ee Muqdisho degan yaa si toos u hadlay wiilasha Soomaaliyeed ee walaalahay ah ee Muqdisho degan ee isku dhiiganahay yaa si toos ah u hadlay siyaasadda macna waa ku sheegay daari adigaaga maanta xabadda kugu dhaceysay Soomaaliya ee dalkii joogo wallaahi bileen uu ku karaameenin wallaahi bileen siyaas Soomaaliyeed inuu hotel ku degaya kaafrin laakiin qaaqlayaashanadas meelaha ka wada dhawaaqeen ee qaaqda ku haya Ameerika iyo Yurub joogo wallaahi bileen markaan nimaadno adoo u dhimanayo xabadda kugu dhacdayo baasha kugu dhacday yaa dadka dibadaha ka yimido anoo wada gaajis qaarkood waa iska kaambi ka subax yaa iridaan laga furayaayo kaaliya soo gala baqbaqdaas lagu hayo hooy nabadda wiilkaaga yaa wax ku barano madaxweyne ku noqon aabow nabadda gabadhaada iyo wiilkaaga wax ku baran dhaqaatiir bay ku noqonayaan halka markaa reer Muqdisho ka tago reer Muqdisho nabadiina ilaashada xasan sheekh maxamuud madaxweyne soo maray ninka la yiraahdo xasan al khayraana hadidiisa kuwa qabiil ku taageeray hadda qabiil baad ugu ordaysan oo garasa lagu ordaya wiad joogto Muqdisho arintan u yimid bullet proofi garasa baaburay garasa saa igu wado dayni li meel boorti garasa adu dayni la dhactoodo sigada bufta ku geesh rudo ku sheeg nabadaada cisho waxaan u tacsiyeeyaa Allah u naxariisto Yusuf Xaaji oo ku geeriyooday dalka Kenya wuxuu ahaa oday Soomaaliyeed wuxuu ahaa aabba Soomaaliyeed wuxuu ahaa siyaasi Soomaaliyeed buu ahaa marxuumka Allah u naxariistaan leeyahay ilaahay jannadii ha geeyaan leeyahay kuwa caytabaya jeesow ani adigu nabadii nolol baslna laakiin siyaasad ahaan ani adigu kala dhimanay siyaasadda Jubbaland Axmed Madoobe ani adigu waa ka soo horjeednaa anigu siyaasad ahaan yaan Axmed Madoobe u dhaliilaya laakiin adigu isirna cayb iyo dad Soomaaliyeed oo walaalo wada dhashay yaad isirna cayb la dhaxtaaganta jeeso anigu laakiin ka xishoon maayo oo wallahi been ma ka xishoon maayo sababta qof dhintay waa laga xishoodaa Allah u naxariisto qof dhintay oo muslim ah xilku doona ha hayo mar hadduu dhinto adduunyadan uu ka tago waxa la yiraahdaa hadalka ugu wanaagsan ee ugu qiimaha badan ee ugu sharafta badan waa ilaahay ha u naxariisto marxuumkaas laq wax walbooda misreed iyo wax walboo niyadaada ku daray siyaasigu waa laqaa laakiin jeeso isirna cayb iyo qabyaalad iyo qurun yaad meetid dhimatay intaad baalkii qaadatay soort ayarnabadii nolol baad ceebaysay
نبض يا نرول بعد عيب شيء أو قبيل بعد يقول نحترت والله بيرهين لكن حقيقة واحد تعاوي بيش هذا وكذا لطي يا بيرنا إزرنا عيب كلا درامي كل ميل بيوذا دقيهم إلى هاي باكو بيري إلى هاي باكو بيري ووذا دقنان دوننا أيقو أبتي هذير السوء أيقو عرور السوء ذا دري أو بقرر سايق ابنها كلا قرصدو يا ميل وذا دقناريا لكن جاسو أنا واكو قلت مركز ميتين عايشين قف انت يوم مرحومه هذا مقرر سايتا سياسة كتبت إزرنا عيب قبرك أقدمتك والله إيا بالله أنا واكو سودة بقري وأنا كنت بقري أو حقيقة دبي وحكو الله يجاسو أدر عيووضي رال قلين كبه أرنتا واد كو عيووضي جاسو باشو إلي كادك تهداربت أدر باشر رال قلين كبه قف دنتي بعد عايشي قف دنتو مرحومة أياد عايشي رال قلين كبه والله بين ما وكون نستيحين يا رال قلين كبه عايدة عاد مرحومك الله هو نحاريسته وقايستي رال قلين كبه نبض هذا كجرته وناقاقا كجرته شرفت هذا كجرته نبض هذا كجرته وناقاقا كجره شرفت هذا كجرته وعقول رينا والنبض هذا كجرته هذا كذا لوش رال قلي كبعي عايدة يا فلقات هذا عاد مرحومك انتي وقايسته والله يا بالله بيننا معه قفك بلا قلد وكدعه وغلطمي كرا قفك مركو انت وحا لا يرادا الله هو نحرست قفك مسلمك تاسو يرادا شرفتا كجرتو كرامدا كجرتو بلا ادنمدا كجرتو قالدا كعشوت قفك مركو انت اسكدا قف مسلم او مقرر شاي الى كتابكيس قرانك يا حديثيدنا لوو شيغايو قفك مركو دنتو يا ميدك كرامدا او ليه قالدا كريستانكا ee diinna aaminsanayn yaa qofka markuu dhinto way ixtiraamaan way sharfaan way karaameeyaan laakiin jeeso aar macaane qof dhintay wada flagaadayso nabadaada ku jirto waa ku digay aniga nabadaada ku jirto wanaagaaga ku jiro sharaftaada ku jirto waa sida ugu dhaqsiyaha badan weena raalgeli ka bixisa والله يا بالله حير إلاليها جود بقرش وانين هذا كله قويان ولا شيء يدات كودلي سياسات واقعة سريان دات كوكت نشرة والله يا بالله ده إله وحوي أنا ودي خوشي فقان ماي لكن وكون استحيانا وعن كل جاسو رال جلي كبه مرحومين طلع عاي قف كمركو نتو مرحوم النوض لما عايا كلها باريدي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.